dadkan fikradaha qalloocsan la geliyey inta badan waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn dhalinyaro aan aqoon lahayn oo diinta lagu qalloociyay u badan yihiin fursad yar hadday u helaan in diinta xaqa iyo jidka saxa loo sharxo si fudud bay ku soo noqonayaan sidaas daraaddeed baad garan kartaan kuwan hadda qolyahan qullaada ee dhiigga banaystay waxay aad ugu dadaalaan waxa ka mid ah ciyaalka raacsan iyo ciidamadooda iyo dhalinyaradooda inayna cid kale dhageysanin wadaad kale ma dhageysan karaan cid kale ma maqli karaan laana hadday cid kale dhageystaan oo risaalo kaliya faham kale oo diineed gaadho waxbay fahmayaan waana ka dhaqaaqayaan waa in marka la xidho oo loo xidho maskaxdooda la xidho oo iyaga kaliya wax ku akhriyaan ayaga kaliyana wax ku shubaan qodobkaasi waxa la yiraahdaa marka waa anjac wasiila waa wasiilada ugu fiican hadii la heli karo oo dadkan qulaadee dhiigga magac islaam ku daadinayo fursadda ugu fiican in yani wax weyn loo helo in wax loo sharxo oo mafaahiimtan khaldan la saxo siday saxaabadu sameeyeen ridwaanullaahi calayhim qodobka labaad waxa weeye oo daawada u noqon karaya faham xumada dhiigga lagu daadinayo waxa kamid ah in meesha laga saaro asbaabta keenaysa inay dadkaasi qulubiga ku dhacaan ama garawshaha ku lahaadeen ama aysan ku lahaan waxa kamid ah munkaraadkan daahirka ah ee bulshada dhexdeeda ka muuqda ninka dhalinyaradahan aqoonta lahayn adkaysi ma laha dulqaadkeediina ma laha sidoo ku xallin lahaana ma garanayo sidoo ugu sabri lahaana ma garanayo qiiro diineed baa ku jirta markaaba waxa galaysa gacan wax kaga qabo warta gacantii shuruud bay lahayd adiga ma tahay cidii wax kaga qaban lahayd misabaltigeed fahamka ma gaarsiis waxa kamida shariicada ilaahay iyo diinta hadii dalka lagu xukumi lahaa oo maxaakimta iyo wax yaale kitaabka ilaahay sunnada nabiga noqon lahaayeen dad badan oo lagu khalday shariicadii baa meesha laga saaray dagaal lagu gelinayaa meesha ka bixi lahayd asbaabtan marka mamsaga ah ee inta badan quluwiga keenta si loo daaweeyo waa in asbaabtaasi meesha ka baxdo intaas wax badan daaweyn lahayd oo ku filan lahayd طيب taas macnaheedu ma aha hatta hadii waxani la xallin waayo oo ay saa u sii jiraan marnaba sabab ma u noqon kartaa adiga inaad dadka dhiigooda banaysato layso macna la'aan iyo natiijo la'aan ma keenaysaa ma aha waxaan ka hadlay laakiin waxa qayb weyn ka noqon lahayd dadkan kadaatay in la saxo waxa qayb weyn ka ahan lahayd khaladaadka bulshada dhexdeeda ka jira iyo andimada iyo nidaamyada dhisan khaladaadka ka jiraay in la saxo hadii la saxo wax badan baa marka daawoobi lahaa